waan idin salaamay dhammaan saaxiibada ku xiran channelkeena Bidaayaad ayaan kaga mahad celinaa sida wanaagsan aad ula socotaan muuqaalada bartaan soo dhigo soo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaan rabaa idin wadaago sheekooyinkii ugu dambeeyay arrimaha aflaamta warbixinta ugu horeysa aan ku bilaabi doono waxa weeyaan jalaaga caanka Hrithik Roshan oo ku guuleystay abaalmarinta Joe Award taas oo ah abaalmarin caalami ah jalaagan ayaa maalintii shalay ku guuleystay abaalmarintan wuxuuna ku qaatay ama lagu siiyay gudaha dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya magaalada Riyadh jalaagan ayaana kaga mahad celiyay abaalmarintan wuxuuna aad uga mahad celiyay boqorka dalka Sacuudi Arabiya ninka lagu magacaabo Mohammed bin Salman jalaagan waxa kala soo qaybgaleen jilaayaal caanka ah daafaha caalamka oo lagu xusi karo jalaaga lagu magacaabo Morgan Freeman abaalmarintan waxa la isku keenaa dadyoga sanooyinka badan ku jiray fanka jalaagan wuxuu kamid ahaa dadyoga dhanka iyo Hindiya laga soo xushay in ka badan 2 decades ama 20 sano ayuu fanka Hindiya ku jira ama 25 sano ninka lagu magacaabo Hrithik Roshan maalintii shalay aynu abaalmarintan qaatay saaxiibayaal sheekooyin kale aan soo qaadan karno waxa qayb ka ah gabadha lagu magacaabo Meesha Batalna waxa ay shaaca ka qaaday inay aad kaga xun tahay inay mar uun la shaqeeyay jalaaga lagu magacaabo Shah Rukh Khan maadaama hadda kor loo soo bandhigay filimkii Jalti gabadhan ayaana sheegtay in filimkaasi aysan nasiib u yeelan maadaama marka horeba aanan loo sheegin gabadhan marka hore filimkan waxa la rabay inay sameeyso laakiin ninka secretary-ga ahaa ayaa yani qoladii filimka iska lahayd kala hadlay in ay yani uu sheego gabadha Meesha Batal laakiin waa uu ka qariyay iyaduna waxay ku mashquulsaneed aflaan kale laakiin muddo sanooyin kadib ay ka hadashay inaysan ka warqabin in loo soo bandhigay filimkaasi Jalti kaas oo guul weyn gaaray Shah Rukh Khan iyo sidoo kale Rani Mukerji ayaan filimkaas hogaamiyaal ka ahayn Meesha Batal oo hadlaysa showga dacanka Bollywood Bubble ayaana shaaca ka qaaday inaysan ka warqabin in loo soo bandhigay filimkaasi saaxiibayaal sheekooyin kale aan soo qaadan karno waxa kamid ah gabadha lagu magacaabo Rabirata Zindi maalinta beri wuxuu dabaldhigi doontaa sanad gurida dhalashadeeda kontonaad gabadhan waa mid kamid ah tirshadaha lagu jecel yahay fanka Hindiya qaasatan Bollywoodka inkastoo koonfurta Hindiya aflaam ay ka sameysay maalinta berita ayana sanad gurida dhalashadeeda u dabaldhigi doontaa tirshadan wax lagu xasuustaa aflaam uu kamid yahay filimka caanka ah Soldier laakiin waxa xusid mudan in filimkeedu ugu horeeyay ay sameyso waxa weeyaan filimka jaceylka ay Dilsey kaas soo baxay sanadii 1998 Shah Rukh Khan iyo Manish Karol ay qayb kale ee beri ay u dabaldhigi doontaa sanad gurida dhalashadeeda kontonaad waxay dhalatay 31 January sanadii 1975 saaxiibayaal sheekooyinka waxa qayb ka filimka Sky Force wali teatrada dalka Hindiya ay saaran yahay Akshay Kumar ay hogaamiye ka marka la eego filimkan maalintii shalay ay ku baneed maalintii saddexaad wuxuu keenay lacag dhan 6 karoor dhanka waxa xusid mudan Akshay Kumar filimkan Sky Force inuu kaalin saddexaad soo galay marka la eego aflaanta uu sameeyay Akshay Kumar COVID-19 wixii ka dambeeyay Sorry Fancy ay qaybta koowaad ku jiro 291 karoor soo xareeyay oo MG qaybtiisa labaad ayaa 220 karoor soo xareeyay Sky Force waa filimka saddexaad ee lacag u badan soo xareeyay marka loo eego aflaanta uu sameeyay waa in ka badan 13 filim COVID-19 marka laga soo laabtay Akshay Kumar dhamaan way guul dareysay marka laga reebo Sorry Fancy Sky Force qaybta saddexaad ama kaalin saddexaad ayuu soo galay booskan wuxuu kala baxay filimka Badimi John Diamond kaas oo aflaam wuxuu ahaa film action ah Tiger Sharif ayana qayb kale Akshay Kumar filimkaasi saaxiibayaal dhinaca kale hadii aan eegno maanta oo kale aflaamta soo bax kuwada ugu caansan waxa ka soo qaadan karna filimka lagu magacaabo Finashak kaas oo ay Soomaalidu qaar u yaqaanaan balwan xidigaha filimkan oo mid kamid ah aflaamta xilliga shaleemoyinka aad kale u xiiseyn jiray wali way jiraan dad xiiseeyo filimkan waxa hogaamiyalkooda ah ninka lagu magacaabo Sunishiti Soomaalidu balwan ay dhahan Rafina Tondon iyo Dani waxa uu soo baxay maanta oo kale 30 Janaayo sanadii 1998 lacag lagu kharash galiyay waa 6 karoor waxa uu keenay 6 karoor oo kaliya natiijo aan follow ayuu noqday ama filim guul dareysay saaxiibayaal hadaba intaas ayaan soo googooyaa muuqaalkayga balan hadii aad janaalku cusub tahay nagu soo biir muuqaalka dadka ee shalaag inoo saar sii sheer gareeyo la wadaag asxaabtaada waan ku mahadsantahay daawashada muuqaalkeena